maalmihii madooba ee soo maray Soomaalida ku nool caasimadda waddanka Sweden ee Stockholm July 2015 waxaa dil toogasho ah loogu dilay gudaha magaalada Stockholm Allah u naxariistay Ismaaciil Maxamed Aadan oo 19 jir ahaa 25 July isla sanadka 2015 habeenun kadib waxaa isna toogasho loogu dilay gudaha magaalada Stockholm Allah u naxariistay Maslax Xasan Warsame oo 17 jir ahaa Soomaalida waddanka Sweden ama caasimadda Stockholm waxa ay si wada jir ah ugu sameeyeen labada dhalinyarada aas qaran oo hal maalin la qabtay. Hooyo Socdi waa hooyada dhashay Allah u naxariistay Maslax oo kamid ah labada wiil la dilay ayaa dareenkeeda xanuunka badan la qaybsatay ummadda Soomaaliyeed ee reer Sweden iyadoo dul joogta aaska loo sameeyay Allah u naxariistay Ismaaciil iyo Maslax. Waxaan rabaa halkan inaan ugu duceeyo geerida masiibada leh ee ku timid markii hore wiilkayga saaxiib la ah oo la dhaho Ciisa anoo aad u qalqalsan oo waagi ii bariyaan iyo wiilka la dhashay ayaa haddana Maslax ay timid waa wiilka anigu aan dhalay Maslax Xasan Warsame taasna waxay nagu noqotay Soomaali weyn haddaan nahay meeshan ku nool wax argagaxiso leh oo aad iyo aad u leh yacni geerida dilkeeda laakiin dhinaca geerida Allah ka timid argagaxiso ma leh go'aankan Ilaahay ka yimid raggan gacan ka xaq darnaa saan u maleynaa dishay qaas ahaan wiilkayga iyo wiilka kale marka alxamdulillah waxaan u tacsiyeynaa in alle iyo inta garanaysa nafteyda muslimiinta iyo ilmaha yaryarka oo aad ilmahan u jeclaa ay ka dhinteen oo aad u murugaysan hadda qabuuraha korkooda ilaahayna waxaan ka baryayaa ayaga inuu xaq garansiyo kuwaana jannada firdowsa u galiyo anagana samri iimaan naga siiyo sidee looga dareemay dhacdadan guud ahaan waddanka Sweden maxaa sababay dilalkan ay la kulmaan dhalinyaradii mustaqbalka ee Soomaaliyeed maxaa lagaga hortagi karaa dhacdooyinkan sii kordhaya marba mar ka dambaysa ee ay la kulmayaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool wadamada Westernka arrinkani sina waa u cusub yahay sina baryahan buu soo waa cusub yahay oo Soomaali istoogata holo ma aysan dhicin waan ka aragnay wadamo kale oo Yurub ah ama waqooyiga Ameerika laakiin Sweden oo Soomaalidu wadamada ay ku badan tahay waa wax ku cusub dhanka kalena ma cusba oo waxaan arkaynay dhalinyarada Soomaalida oo dambiyada waddanka gasha inay soo kordhayso inkastoo ay ka yaryihiin inta horumarka gaaraysa dhalinyaro fara badan baa waddankan ku korta oo horumar fiican gaarta laakiin kuwaas inoo muuqdaan kuwa aan ku guuleysan mustaqbalkooda kuwaas way inoo muuqdaan naxdinteeda ay leedahay laakiin aad baqaabka u dhacday ku xidhanta aad baan uga naxnay guud ahaan ummadda dee Soomaalida iyo gaar ahaan asxaabtiisii arurta asxaabteediiba runtii qaabka falxumada ee Soomaali gacanteeda isku dhimatay ilmo yar oo qaarkood qaan gaadhin laakiin 7 jir ah xanuunkeeda lahayd marka arurtu si kastaba ay isugu khaldameen oo isugu dhacday annaga waxaan u noqotay markii aan soo gaadhay xanuun tareenkaas magaalada dhan buu wada galay wallahi walaal horta waa jirtaa waxaan nahay horta wadan burburay nadayna Soomaali aynu nahay dhibkana meel walba oo ay jaariyada Soomaalida degantahay waa ka jira ilaahay waxaan ka baryaynaa carruurtana Allah noo wada hagaajiyo laakiin dayaca weyn wuxuu ka jiraa oo ugu saabsan waa dhinaca iskuulada iyo waqtiga maaragtay ama ilmuhu ay soo gaaraan oo la ogaado inuu maaragtay cunugan khatar ku sugan yahay waqtigu wax ka qabadka u baahnaa ama dhinaca nidaam dawli ha noqdo ama dhinac kale ha noqdo uu aad u yaraaday taas baana keenaysa in maaragtay saameyn tira badan maaragtay dhinac haddaad ka fiiriso wixii waddanka ka jiray miraheedii way waxaynu guranaynaa
maxaa yeelay dadku meel kale kama imaan Soomaaliya ka yimid waxa kaliya oo nasiib darro ah ilmaha halka ku dhashay ama ku koray oo ay dhici karto inayeen xataa luqadoodii hooyo ama afkoodii hooyo ayaan si fiican u aqoon oo mujtamac kale iyo bulsho kale oo kala dambeyn iyo garasho ka jidho iyo wacyi siyaasadeed oo sare inay ku barxami waayeen ama ku milmi waayeen dhinaca wanaagsan ee ay weli dhaxaltooyo u noqotay tii ka jidhay dalka waa nasiib darro guud oo jirta gaar ahaan hadda su-aashaada markaan qaybta dambe u soo noqdo waalidiin baynu nahay dad Soomaaliyeed oo meesha degan baynu nahay inay nasiib darro weyn tahay oo aad iyo aad wax loola murugooda ay tahay shaka kuma jiro komuunka cunuga markuu daagis ku jiro ama iskuulku alarmiga waa la helaya cunuga leenka ka baxay marka reerka inta la saacidi lahaa ayaa waxa dhacday daayactir waa dhacday waayahan markii arrimahan soo baxeen ayaa annagoo tan rabno inaan ka hadalno oo focus aan saarno ciyaalkan galaya criminalka oo nolosha ka dhacay nacastiyoob ku badata xaafadii ayaa waxa la keenay arintii kala timi oo xagga iyo shabaab iyo magartay dawladii focus ku waxay saartay dhinacan iyo masaajidii anna waa ka soo horjeeda arintaas sababtoo waxa waaye arinta labada culeys markaan isku barbar dhigo tana iga culeys badan inta waxa ku jira 400 ka hadlooya meesha inta 40 laga hadlayo 4,000 baa laga jira hadii dalka dhan aan fiiriyo waa ka badan tahay markaan uruburo iyo tubori maalmo Stockholm aan fiiriyo way ka culus weyn tahay tan maayuumiyanka ah oo xaafadeeda ku dhaceysa oo criminalka ah oo da'dooda hoos u da'ayo iyo tan aadaysa way yartahay marka inaan waxaan rabnaa haddii programkan la galay Mareykanka hadda För att svara på din fråga så skulle jag gå tillbaka till det här området. Det här området har ganska mycket ungdomar. Det finns många ungdomar som har problem i skolan. Det finns en del ungdomar som misslyckas i skolan och hamnar utanför skolan och ganska tidigt går ut från skolan utan bra betyg och vad jag upplever känner en liten hopplöshet. De träffar vi som poliser. De hamnar i dåliga kretsar med andra kriminella och begår brott. Det är en liten kärna bland alla de positiva människorna och ungdomarna som bor i Järva där jag är polischef. haddaba iyadoo ay jirto dhibaatada baasan ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haddana waxaa jirta aragtiyo kala duwan oo aqoon-yahano culimo u diinaya in garad Soomaaliyeed ay ku guwaabinayaan ummadda Soomaaliyeed in ay arrintan ku baraarugaan sameeyaan dadaalada ay ku yareynayaan khatarta ka soo socota dilalka sii soconaya ee la xiriira faldambiyeedada ka dhaca dhalinyarada Soomaaliyeed dhexdooda filimada iminka inamadu ina tusayeen haddii aad historigiisa la socotaan ma ka akhrisateen meediyada waxa la isku dilay meel baa la soo dhacay lacagtii la qaybsanayay iyo ballamihii la galay ayaa la isku dilay marka taa haddii ay runtii ay ugu weynaatay qodobka ugu weyn inuu dhaqaale yahay halkaa hadee jawaabtii inaga isa siinay inaynu ka waxa weeye ka kacno maxaa la yidhaahdaa fadhiga oo aynu shaqaysano si markaa caruurteedii ay u helaan dhaqaale inta badanna caruurteena waxa baabiyay caruur ajaanaba waayo runtii Soomaalidu dhaqan uma laha daroogadeena ugu weyn waa jaadka adduunyada oo maaragtay ururada kale wadamada kale waxay leeyihiin ururo ay aaminsan yihiin dhibaatada inagayna haysatay qaybiska iyo qabiilka cudurkan inagu dhacay dadka kuma jiro waa wadan taasi waxay u fududeysay inay yeeshaan meelo yaryar oo ay dadkooda luqadooda ku baraan dhaqankooda ku baraan oo ay keenaan waa dadka ajnabiga ah kuwii wadankan u dhashay daagiska markii la joogo bay waxay leeyihiin din doctor iyo larmin doctor halkaas waxay ka raadinayaan inay ilmo saaxiiba u helaan markay arkaan inuu waalidkaanu yahay mid iyagoo kala ah oo nadiif ah oo shaqaysanaya waxay leeyihiin min doctor ka bon trafas waxa kale karta waxay rabtaa inay reedan dogis ka soo bilowdo
oo ilmihii isku wadaa ilmihii bay isla cusumayaan xaflada isla geynayaan dabaale isla geynayaan waa hab lagu difaaco ilmaha oo lagu ilaaliyo dhibaato ballaaran baa jirta oo dadka Soomaaliyeed haysata caruurtii waxa dhacaysa hadda ayagiiba ayagii gaangistirimo ayaga in islaayaan waxa imaanaysa in waalidkeed ma aha ifriis ay ka baxaan laakiin waxaan u saarinayaa arrintaas waalidka naftiisa anigu intuu yar yahay horta daag islaamiga jira daagis islaamiga jira meeshaan uu ulina ayadoo naftu hooyada iyo aabuhu daag islaamiga in noqdaan rabaa hooyada iyo aabuhu daag islaamiga in noqdaan rabaa oo diinta islaamka anigu ku ababiyaan oo intaan xataa awna tagin muxuu ahaa isaga daagiska ba tagin meesha daagiska laga geynayay ka horteeda iyo markay yihiin ayaguna adna dhinac aad kala joogtid waxa wanaagu yahay inaad bartid xumaanta waxay tahay aad bartid afka inaad bartid gaangeysirnimo madda kale waxa la yiri caruurta meesha tan yar waxay og yihiin baa la siiyaa hore og yihiin baa la siiyaa ayaga inaadan ka damaacin oo waxa hadii lacag hadii dhaqaale waa tuuga timaada hadii waxa la dhaqaale dar timaado tuuga timaada saanu tuugo noqon ama awunan muxuu ahaa isha gaangisaru noqon ama aanu daroogo u gelin hooyo iyo aabba anuga ka fikir xoolo kale ma jirtaan xoolo kale maynu haynaa ma beeray falayaan waxa weeye nabadgelya nala siiyey gurina waa nala siiyey caruurtana biil baa loo qoray adna biil baa lagu qoray nabadgelyo ku jooga caruurtaada in muxuu ahay hooyo kale kaaga kasbato oo aabba kale kaa kasbado nacsimadaada wey kuwa aan nasiibka u yeeshay ilmahooda inay weli bad qabaan Soomaalidu waxay tiraa nin walaalkii loo xiriyo soo qoyso cid ku jirta bir ma jirto qof kasta oo Soomaaliya aan u rajaynay intaas dhacdo inuu ku tala galo wixii walaalka ku dhacay asagana ay ku dhici karaan taa macnaheedu marka waxa weeye dadka wadanka degan waayeelkiisa iyo waxgaradkiisu in ay iskaashadaan oo habka ay u nool yihiin iyo habka ay u fakarayaan wax ka bedelaan dad baa ina ku soo jabay sidii loo moosi lahaa dadka Soomaalida ay u taala. Framgångsfaktorerna ligger i att fånga upp de här innan de faller ur i skolan. Att gå in med vi har något som kallas sociala insatsgrupper här där skolan, polisen, socialtjänsten, fritidsförvaltningen i vissa delar, ibland till och med arbetsförmedlingen samverkar. Det tror jag är en av framgångsfaktorerna. Men en annan viktig del är föräldrarna. Vi ser många unga killar som kommer från ganska stora familjer där föräldrarna inte hinner med. De hinner inte med att se vilka kompisar de umgås med. De hinner inte med att se vart de är någonstans på kvällarna. Och då hinner de hamna ganska snett innan föräldrar, skola, socialtjänst och till slut polisen. laba arrimood baan rabaa inaan aad iyo aad uga hadlo mid weeyaane ilmaha kana wali waa caruur way gurigii aabahood iyo hooyadood ama cidii mas'uulka ahayd bay wali joogaan marka mid aan fariinta aan u diraayo qoysaskaas oo dhan waxa weeye ama wiil ha ahaado ama gabar ha ahaado dadaal walba oo waalidku uu sameeyo marba gaaraysa uusan ku filnaan doonin inuu caawimaad ilmaha u baahan yahay uu helo marka ha sugin inta wax walba faraha ka baxay waxa noo soo baxday inay yihiin ilaa 300 oo dhalinyaro oo ereya aad u yar degan oo xoogooda dambi ku nool inay dambi galaan oo ay shaqadooda tahay dambina galaan kadibna xabsi ay galaan xabsigaas iyo waxa ay dambi ku galeen markii la isku qiyaasana runtii ayaga khasaare ku qaba dhalinyarada khasaare ku qabta sababtoo waxa laga yaabaa inuu 80,000 meel ka dhacay oo 3 sano lagu xukumay marka adiga ba iska qiyaas wadankan 80,000 dhowr bilood baa lagu shaqaysan karaa qofka hadduu shaqo xalaal ah raadsado marka ka waran haddaad 36 bilood xabsi ugu jirto waxaad 3 bilood ku shaqaysan karto marka waxyaalahaas iyo inaan horta ka wacyi gelino in dambigaba uu yahay waxyaalo badan ka hor istaagay
iyo wixii hore oo dhacay inaan la fiirin wada shaqayn soshaalka booliiska waalidiinta annaga oo professional ah ayaa waxay keentay marka inaan ku guulaysano inaan 85 dhalinyaradaas ka mid ah in projectiga ay soo galaan kadibna ay maanta ay noqotay inaan hadda safna ay noogu jiraan 55 maadaama aan shaqaaleenu yar yahay 7 aan nahay annaga dadka arrinta ka shaqeeya marka shaqaaleena maadaama uu yar yahay 55 baa saf ku jirta hadda oo raba inay projectiga soo galaan ilaa iyo 60na shaqada heleen guriga heleen noloshii runtii way ku soo noqdeen waalidiintoodii bay haddana xiriirkoodii baa soo noqday oo taa hataa waa ka shaqaynay in haddii aan heli karno inuu wiilal bay u badan yihiin 2 gabdhood baa ku jira in wiilkii uu ku soo noqdo gurigiisa oo waalidkii markaas xiriirkoodii la soo cesho sababta taa mar haddaad xiriirkii waalidka goysay haddana inaad naxariis u galayso baa iska yar sida caadiga ah nin aabbi iyo hooyo iyo walaal ka soo tegay way adag tahay siduu wax kale ku ixtiraamo marka waalidkii baa farax weyn helay oo arkay inay rajo jirto rajadaasna waagii hore waa maqnaan jirtay haddaba markii intaasi lagaga soo gudbo dhibaatada baahsan ee dhalinyarada Soomaalidu ay kala kulmaan kadib marka ay ku guuldareystaan nolosha ee la xiriirta dambiyada ka dhasha dilalka iyo waliba dhibaatooyinka kale ee la xiriira xadhiga loo geysto iyo waliba ka ganacsiga daroogooyinka ama maandooriyaasha kala duwan haddaba taa bedelkeeda iyaduna waxaa jirta in dhalinyarada Soomaalidu ay jirto khatar baahsan oo markii ay ku guuldareystaan nolosha ay isla markaasina qaataan go'aan kale oo ah in ay wadankan isaga baxaan isla markaasina ay ka soo dagaalamaan wadamo shisheeye oo aysan aqoon iyo deegaan ahaan intaba aysan u lahayn aqoon buuxda haddaba waxaa isna dhinacyo badan ka eegaya arrinta argagixisada iyo saameynta ay ku yeelatay dhalinyarada Soomaaliyeed taasoo aan lahayn meel loogu hagaago saameysana dhammaan caalamka aqoonyahan xildhibaan hore waa bari runtii kelmaddaas xag jir ama terrorist argagixiso waxaa badanaaba media caalamka ku tilmaamay dadka muslimka ah runtii waa mid soo jireen weeyaan sababta 2001 2005 ومنانيا يلبض كون يسقى دور جربا وحال لا أجي إن أفعاش لوران كروا أرجح سينما أكل عديرو وحال أرك أنت توضى بدن إنه هو عند اليوغا ميدك تأه عنصريين تأه اسم مسلمين تأهين مع ذلك مركي لقى هذا تيروريست وحال لقوت الماما ضدك مسلمين تأه sidoo kale hadda dhalinta dhoofaysa Suuriya aadaysa ama Iraq ama meelaha kale soo waxa weeyaan dad kala jira iyaguna oo qowmiyada kala ah oo aan islaamiyiin ahayn ama diinta islaamka aan xambaarsan oo leen jihad baan sameynaa dhinacyo kale ka soo jeeda dadkaas markay dhoofaan way soo dagaalamaan oo xataa haday ku dhintaan meejiga uma arkaan inay yihiin dad muxuu ahaatay argagixis ah ama dad xaq jira oo muxuu ahaay dhinac la saftay marka waxa moodaa seefta iyo muxuu ahaay layrku inuu ku saladan yahay oo sii jeedo uun dhalinta muslimka tasma inaan u cudur daarayno faash xun aynu sameynayno dadka qaarkii magacna islaamku sameynaya laakiin si cadaalad loo falo waxa ay muhiim in markii dadka nooc dhalinteena laga hadlo iyo khaladaadka ay gelayaan in dad yoga kala qowmiyadaha kalena iyagana khaladaadkooda la soo saaro oo laga hadlo oo leeyahay kaasoo dad noocaas jira oo dhalinyaro noocaas jirta oo xasaabta raacsan oo daadegta oo soo dagaalanta marka cadaalad inta laga falo ay idin wanaagsan hay marka wajacayl ان كينيا لكن علما كسلسل قضب كلبات oo isna dibka Kenya waxa weeyaan in la qabsasho aan la qabsanayn wadanka ku nool runtiina taasna waxa u sababa waxbarasho la'aanta waa jiraan dad badan oo waxbartay oo si fiican waxbartay haddana jahligaasi geeyay inay extremist noqdaan laakiin dhalinta hadii loo fiirsado badanko waxay u badan yihiin dhalin iskuulka ku adkaaday waxbarashada ku adkaatay position ka waayo mujtamaca ku noolisiyo fargil lahayn qoddu mainstream ka waayo waa inuu naftiisa daydayo oo xagee anu jooga taas marka waxay keenaysaa inuu daydayo shay ka yara weyn hantiis taasna waxay bilaabataa markuu teenage qof yahay waana waqti aad xasaas u ah qofka aad
muxuu ahaay loo wajihi karayo hadduu helo gacan ka adag oo muxuu ahaay runtii isna u hanweyn yahay aad ayay u sahlanta qofkaasi la isticmaalo waa qof dhalinyaro ah xoog haya mabhuur kuwa ama aad ugu dhasracaadsan shayga u arko marka qofku ha noqdo ama ha noqdo shiikh weyn oo garweyn ama ha noqdo tuug weyn oo muxuu ahaay gaari Mercedes wata labaduba way muxuu ahaay boverkan bixman waxa laga muxuu ahaay inay qofkan ta'tiiriyaan qodobka saddexaad waa maqnaanshaha mujtamacaadka dadkiisa wanaagsana ummaddu markay waxa arrimo soo foor saaraan arrimo noocaas waxa u baahan yihiin inay ka wada sheekaystaan seexo yalla laana qofka qoyska kaliya kuma fila aabbi hooyo kaligood arrin noocaas inay xaliyaan kuma filan arrin mujtamac weyn arrin mujtamac ayna waxa u baahan marka ani wiilkayga iyo wiilkaaga iyo walaalkaa in aragno khalad ku taagan yihiin marka iskaashano inuu mujtamacaan oo in eegno xagee khalad ku jira ama noqdo qofka inay extremist ka aadeen dhinacaas ama noqdo dhinaca kale aadeen marka mujtamac ahaan inaan sameeyno xadaanooyin ama meelo lagu hayn karayo oo iyagu ku doodaan oo lala doodo qofkii waa qof caaqil oo baaluqa waxa qaatay uun yani qofka adagun baa soo jiidanaya marka doorkii mujtamaca ishaystay kala go'onayn masaajid hebel iyo qabiilada ahayn oranaya arrintan hortaala sheekadu way isan noqon project ee noqoto ficlan wiilkaagii weeyaan sayala waxaanu ka hadalnay ka hataa ku saabsan ilmahan maaragtay ama Soomaaliyeed oo baxay oo kollay go'aamo badan aad arkaysid dhinaca dawladda ama maaragtay ka gaarayaan qaarkood ee leeyihiin laga noqdo qaarkood ay leeyihiin maarkan xabsiyada lagu xiro arrimahaas oo dhan waan kala hadalnay inay maaragtay xalna u noqonayn in maaragtay muxuu ahaa dadkaas loo sameeyo midda kale waalidiintaana kale wacyi gelin diineed iyo wada shaqeyn iyo maaragtay iyo wada tashi in maaragtay ay arrimaha laga wada qaato sida tan loo sameeyay ayaa tan kalena maaragtay ayay maaragtay masaajidada iyo waalidiintuba iyaguna xiriir ooga wada dhaxeeya waxaana sameynay guddi ka kooban masaajidyada iyo maamulka marka ugu horeysa aqoonta loo leeyahay arrimaha kan aad buu hooseeya marka aqoontooda in kor loo qaado marka hore in caawimaad la siiyo qoysaska waalidkoodu ay Suuriya iyo Ciraaq ay aadeen dagaal aysan lahayn ka qayb galaya waa kow labo in kuwa soo noqda markay soo noqdaan gacan la siiyo sidee bulshada ugu soo noqon lahayd oo qayb bulshada ka mid ay noqon lahayd oo laga dhaqiyayo waxa maskaxdooda lagu abuuray oo runtii ah nacayb iyo cadawtinimo cid kaleeta cid ay ku jeedana la galay cid ka jeedana la garanayn taas in iyaga marka bulshada dib loogu soo celiyo naguma cusba ku runtii waa ogtahay ma shirar badan ma ka qaban qaar bad ka qaybeyso wax xasuusta oo mid dee aan Soomaalinimo iyo mid ka balaaran waan ka qabanay xaafada waxaan ka soo qayb galinay hay'adaha oo dhan wada ogeyd mid shirka halka ku qabanay adiga lafteeda goobjoog ah runtii waana resultaadkina waa yimi oo sanadkan dhaxalmaayo samarkan wax baxay lamayo awal waxay baxayeen markii sanadada hore ma dhowr bilood kasta waxa loo leeyahay walba baxay oo shaqeyn baa camal qolada ku shaqaaleed booliska dhaarcadka ah jimca kasta kulana anaga masaajidka inuu yimaadaan ku kulana qolada dhaarcadka ah jimca kasta marka waa isweydiinaa mar walba annagana dee waan ka wacayna masaajidka waxayna shirar baan qabanaa culimaan u yeedhnaa in wax saxiixa aysan ahayn wax saxiixa ahayn oo diiniyan aan saxiixayn waan sheegi jirnay aan si xun loo dhiman waa la dhimanayaa ama diintu dee wadooyin fiican bay leedahay wadooyinkeeda lagu dhinto haddii la dhimanayo runtii markaas waan ka qabanaa mar walba samar iyo finta laba goor baan leenahay samarkana mar baan qabanaa fintarka mar baan qabanaa ku saabsanaa markii dhaweyd mar arrintan dadka dhalinyarada baxaysa waa aad baan ku faraxsanahay anugu inay yaraatay oo aan hadda ilaa hadda cid baxday baan aanaysan jirin samarkan dhan waxaan is leeyahay dhinacyo badan annaga waa runtii dee waxaan hayn cidda wareejinaysa annagu hayn kulanka qaban jirtay booliiska cid kasta ugu qaban jirtay laakiin waa laga wada qayb qaato inta la fadhiista waalidku ka wada hadleen iyo hay-adaha ku shaqada leh oo dhan ay masaajidadu ka qayb qaateen oo dhibeed loo sameeyey baa jirta oo laga wada hadlay booliisku dadka la hadlay
masaajidka intuu yimid xataa majmacayaasha boolisku ka hadleen oo aad uga hadleen annagu si khaas oo diiniyan dee uga hadalay oo mar walba ugala hadlaynay waxaan isleeyahay hal waa loo dhammaa xataa ururada soomaaliyeed kale waa ka qayb qaateen way galeen iskuulbuntka soomaaligaas iyo way ka qayb qaateen Stockholm arrintaas culays weyn baa laga saaray runtii culays weyn baa laga saaray dee annaguna horumad baan ka hayn runtii oo waan meelaha la isugu soo hoyanayo dadka looga sheegayaan mar walba ama dadka informationka gaarsiinayay baan ahayn arrinkaas waxaan filayaa welina waxba u dhimantay uma dhammaystirna dowladda lafteedu dee culays badan bay saarto waa tan u samaysay group gooniya u samaysay oo milisaliin oo ka mid tahay waa dee waxaan hore u jiri jirin wey culays weyn bay saareen marka waxaan filayaa dadaaladaas baa keenay sababta waxna waa dhiman yihiin oo lama oran karo waa nool stel ma jiraan lama oran karo wax waa jiraan laakiin waxaan isleeyahay waxbaa laga gaadhay marka haddii si nadariya loo eego theory ahaan waa saarantahay laakiin sidii maaragtay loo waajihi lahaa runta waxay u baahan tahay research badan waxay u baahan tahay lacag waxay u baahan tahay maal waxay u baahan tahay dad waxay u baahan tahay waqti laakiin waxay kusoo biyashubanaysaa in la daweeyo cudurradaan sheegay yani maanta haddaad tiraahdo maanta qofka dhalinyarada tiraahdo nin maxaa ku wareerin yiraahdo wallahi waxa dhib ka qaba anigu caalamka qarbiga ah iyo westernka ah sida uu la macaamiltamayo dalalka sida Soomaaliya oo kale faragelintan ku hayo maalin kasta waxaan ka sameeyay Ciraaq iyo Afghanistan iyo wixii la mid ah waa inuu ogaado in dad yow badan oo ka arrinta soo qabaan xitaa muslim ahayn oo ka keeni karaya miro badan ka badan tuu sugu leeyahay qoriga caarisa ku keenaysa laakiin ma arko looma sheegin wadadaas marka jahliga in dadka laga bixiyo in la daweeyo cudurrada sheegay in la helo muxuu ahaa xarumayaan oo la kala waaweyne bal in la soo yimaado leeyahay wallahi gudiga dadka iyo aan waxaanu haysan odayaal baan haysan waxaanu haysan culimo waxaanu haysan dhalinyaro active ku ah muxuu ahaayay arrimaha bulshada waxaanu haysan aqooniyada jaamacada ka soo baxay oo professor dadka saddeed isu tagaan maskaxdooda isu geeyaan waxbay ka dhalin karayaan laakiin haddii sinogin kastaaba isku koobo isagu eradiis uu sheekhigaanu masaajidka soo dhaaf maayo ninka halka igu ma igu yimaado qofkii fatwada weydiin la telefoon hay soo diro kaasna ku jawaabaya laakiin daadigi maayo meesha uu dhalinyarada fadhiyaan tagi maayo fadhi ku dirka oo professor ku soo yiraahdo oo marka sarki maayo marka intaasna sala sameeyo oo dadku intay isu tagaan laga wada sheekaysan waa arrin bulsheed aad xoog badan weeye ta saddexaad in la kaashado mujtamaciintiisa kale sababtoo ah ilmuhu intuu naga maqan yahay mujtamaca jiro intuu naga nala joogo intuu mujtamaca la jira badan marka dadkan ta'thiirinaya intuu galay tuug baa loo baahan yahay sheekha inuu naqaano caruurta beenta u sheegaya inuu ka digno way ma aynu dhahno sheekha iyaga maxaa ku tusay kiina ma aragtid dadka in la tilmaamo in ninka xun aynu naqaano xaafadeena degan caruurta ta'thiirin dhalinyarada beenta u sheegaya in la iska qabto iskuulka iyo jaamacadda iyo jimnaasiya ardaydu ay dhigtaan xiriir fiican la yeesho la eego dadkan sidii u fikirayaan inagu aanu waajahno mujtamac ahaan su'aalaan ka yeelano qofkan waxa iskama tegino waxba ku kiciyey waxba haatif baa u yeeray dad baa ka shaqeeyey marka shaqadii qabteen shaqo la mid ah in la qabtay loo baahan yahay marka intaasan ku oran lahaa waa haddii cudurrada la daweeyo waa laga gudbi karaya insha Allah taala bidnaa karim waxaan economiga la yiraahdo soo bartay ama dhaqaalaha waan dhameeyay runtii alxamdulillaah rabbil caalamiin talaabo weyn bay ahayd inaan dugsi sare wadanka ku dhameeyo kadib waxaan arkay dugsi sare inaysan ahayn waxbarasho lala gogol tago ama lala banaan yimaado oo la dugsi sare soo dhameeyay sababta dugsi sare dadka dhalinyarada wadankani boqolkiiba 99 way ka soo baxaan marka waxaan wax ka duwanaa maadaama iska yahay cabdu dad sii wado adoo kulka waxaan go'aansanaa waxbarashadii sii wado anoo dhanka kalena ka shaqeynayo ka watay shaqadayda oo isu arkayna wadankan jaanisada yaala ka faa'iideysto noqdana shakhsi fiican oo model u ah sawirka laga haysto dadka xataa dhalinyarada ee Soomaalida ah sawirka duwanaan sii yoon okay anu waan shaqeeyaa waxna waan bartaa waxaan ahay shakhsi ilaahay wuxuu ku isoo geliyahay wadanka wax soo gelinaya shakhsi wadanka wax ka qaadanaya mii marka waxaan ka dagaalamahay waxay ahayd marka shaqada bilaabayna oo arday ah inaan noqdo ilaahay wuxuu ku isoo geliyo dadka xafiiskan caawimaad iyo dadka taga meeshaas oo aad la isugu bahdilo runtii
adigu hadda waxaan soo galay sanadka 2015 jaamacad baan soo galay taasana insha Allah taala rajeenaya muddada 5 sano soo socota waxbarasho sano waa waxyaabaha la yiraahdo cilmiga sharciyada wadanka ama yuridiga la yiraahdo weeyaan lowga international lowga waxa la yiraahdo weeyaan waxaan ay u kaliftay inaan barto taaqudheeda hal qof oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo waxbarashada galwaan waayay runtii Soomaalidu inta badan waxay barataa maadooyinkan social science iyo economic waxa si aad u bartaan laakiin qof Soomaali ah oo xuquuqda Soomaalida waxa saxaya waxa khalada sharciyan u cadeyn kara ma aysan jirin marka waxay u kaliftay taas inaan helo inaan dhaho okay wixii hore wax ka duwan samee waxbarashadu way adag tahay dadku inta badan dhahan laakiin wax fudud ma jiraan dugsiga sare oo muusan igu fududeyn ana wadan cusub ma luqad baranay marka waan dhameeyay taan insha Allah taala waxaan rajeynayaa inaan muddada soo socoto dhameeyo